wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan gudoomiyaha ururka ONLF admiral maxamed cumar cusmaan ayaa wareysi gaara uu siiyey idaacadda VOA ku sheegay inuu kulan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan booqasho ku jooga dalka Eritrea kulankan ayaa dhacay saacadihii dambe ee xalay admiral maxamed cumar cusmaan ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu raaligelin ka bixiyay dhiibista sarkaalkii ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax loo dhiibay dawladda Itoobiya bishii Agost ee sanadkii hore wariyaha VOA Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo oo jooga Eritrea waxaana ugu horeyntii weydiiyay sidoo kulankani u dhacay kulankaas wuxuu ahaa kulan caadi ahaa madaxweynihii Soomaaliya ayaa dalkan masuuliyadda ku leeyahay ziyaare iyo booqasho dawladeed ku yimid marka mar hadduu madaxweynihii Soomaaliya uu dalkan aan soo yimid runtii waxaan jeclay inaan la kulanno waana kulanay kulankii ugu horreeyay buu ahaa oo hadda ka hormaanaan bisaarat weligayo marka kulankaas runtii si fiican buu noogu dhacay danaha guud ee labada dhinac ururka iyo dawladda Soomaaliya iyo danaha guud ee xuseeyey in la horumariyo ay ahayd baanu ka wada hadlay wixii laga hadlo ay naalsan ahayd ama dhibaatooyinkii hadda ka hor ahaa ama waxyaabo kale jira sidii xiriirka loo wanaajiyaa waxyaabahaasaan ka wada hadlay si fiican ayay noogu dhamaadeen marka maxaad isla gaadheen waxaanu isla gaadhay in si fiican loo wada shaqeeyo xiriirka labada dhinac la hagaajiyo sidii dadka oo wada shaqeynayo oo danahooda guud ilaalinayo oo isku yaro toominayo oo danta guud ee ummadda Soomaaliya waan gartay waan ogeyn in dawladda federaalka Soomaaliya maalmihii Cabdikariim Qalbi Dhagax ay Itoobiya u dhiibaysay ay sidoo kale raacisay in ay ururka ONLF u aragtay inuu urur gacan saar leh sida arrintaas misla soo qaadeen maxaad baan gaadhay arrintaas waxaa arrintaas dadweynuhu ururkaas argagixisa ahay ururkaas dambeyn ay yahay ururnimadood ay yahay dalkiisa halgamaayo adduunka meelkala aan dhibaato ku hayn ama deriska ha noqdo ama adduunyaha ha noqdo weligeed lama arag meel ururkaasi dimaraha kala dhibaatada deejanayo waa sabaato xaqiiqada iyo nidaamka jiray ku arrin noocaas oo kale ma jirto adduun hay-ad kastoo hay-ad kale oo lagu argagixisana inama jirto dana imaarkiisa dad xuquuqdooda u dagaalamayo oo wadaniyiin oo gobonimo doona waan gartay marka si rasmiya madaxweynuhu ma kugu sheegay in dawladda Soomaaliya ayna ONLF hadda u aqoonsanayn ururka madaxweynuhu horeyna wuu u sheegay oo waa sheegay aqoonsan yahay jiraasaha baarlamaanka go'aankii inuu kaa yahay oo uusan u aqoonsanayn ururkaasi dawladda Soomaaliya arrintaa ku saabsan Qalbi Dhagax raaligelin madinka siisay waxaan ka wadaa kulankeedii madaxweynaha dhex maray arrintaa ma la soo qaaday raaligelinta ma ka haysan dawladda Soomaaliya madaxweynuhu arrintaa ayaa u dhacday mataqaanaa raaligelina uu ka bixinayo hadda ka hor baarlamaanka ku dhawaaqay arrinta ayaa waxaa lagu talagelin bay ahayd
waan gartay haddii aan kaa weydiiyo dalka aad dhaqdhaqaaqa iyo dadaalka ka wadaan Itoobiya gaar ahaan gobolka Soomaalida Itoobiya guud ahaan isbeddello waaweyn baa ka socda dadkii waxay dareemayaan neecaw qarno waxaa leeyahay gobolka Soomaalida weli ma cadda arrinta idinku dad waxaad ahaydeen muddo arrintaa u soo dhaqaaqayay waxaan laydinku tiriyaa inaad tihiin dadkii udubdhaxaadka u noqon lahaa isbeddelada halkaasi ka dhacaya maxaad nagaga biirin karaysaa xaalka ismaamulka Soomaalida Itoobiya hadda runtii waxa kale oo guud oo idinku biirinaya ma jiro waxa Itoobiya gudaheeda iyo maamulkeeda iyaga aad weydiinaysaan laakiin annagu inaanu urur gobonnimo doonahay oo aanu doonayno xuquuqdii ummadaasi ay lahayd inay helaan in arrintaasi inay hore u jirtay muddo dheerna ay soo jirtay ilaa haddana ay jirto wax iska bedelan ayna jirin dowladda Itoobiyana wax arrintaas ay hadda go-aan ahoo arrintaas saafara nala soo qaadaysan jirin wadahadal wuu socdaa oo annaga iyo Itoobiya wadahadal baa noo socda wadahadalkaana weli muu dhamaanin meel uu ku dhamaaday oo mataqaanaa go-aan lagu gaarayna ma jirin marka mawqifkayagu waa sidii hore weeye dowladda Itoobiya inay go-aysi tahay dalka yagii haysato ururka ONF inuu gobonnimo doon yahay inuu yani urur gobonnimo doona oo doonaya inuu dalkiisa ka horeeyo inuu yahay labadaa mawqif baa jira mawqifkaasna sidaas uu taagan yahay kaasaanu ku soconaynaa ilaa aanu ka gaadhno ujeedadii aan lahayna ka gaadhno saasuu soconayaa wax kaloo ilaa hadda isbedela maaqan xagga Itoobiya ka arag gudoomiyaha ururka ONLF ayuu ahaa admiraal maxamed cumar cismaan oo waraysi siiyay laanta afka Soomaaliga VOA waxaana uu waramayay maxamed cabdi sandheere dhinaca kalena wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geyle ayaa VOA-da u xaqiijiyay in kulankaasi uu dhacay balse faahfaahin dheeraad ah ma uusan bixin wixii ku soo kordhana dhageystayaal idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan